dagaal lawaan ka dhacay Hayabar waxa ku dhintay mid ka mid ah uqaasha dhulbahanta sidoo kale dagaalkaas waxa ku dhintay laba sargaal oo ay ku tashan jireen maleeshiyaad Koowanta saraakiishaas oo Koowanta u qaabilsanaa buu howlay deegaanada hoos yimaada saraakiishaas mid ka mid ah ku dhintay dagaalka halka midka kalena uu dhintay dhaawac ka soo gaaray dagaalkaasi marka hore qaar ka mid ah hogaamiyaasha maamulada waxay ugu diideen fardhiye inuu soo fariisto shirka waxay ahayd cabsi ka qaban deegaankooda iyo inay ku daydaan fardhiye ayna ka goostaan maamulkooda waxaa jira gobolada deegaanada ay hayaan maamulka ka mid yihiin waxaana ka mid ah gobolka Gedo oo ka tirsan maamulka Jubbaland oo hogaamiye ka yahay Axmed Madoobe iyo Hiiraan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo dhawaan sheegtay Hiiraan inay ka gooday Hirshabeelle ayna la baxday Hiiraan State maleeshiyaad ka tirsan Koowanta waxay dileen caruur la joogta geel oo da'doodu u dhaxaysa 15 ilaa 14 caruurta laayeen Koowanta waxa ka mid ahaa wiilkan hadda sawirkiisa idin muuqda deegaanka ay ku dileen waa deegaan markaasi aan sidaas ugu fogeen Qorolugud waxaana soo baxaya warar hoos oo sheegaya Koowanta in qorsheynayso weerar gaadmaan ku qaadaan deegaanada ka fogeen deegaanada hadda aan soo sheegay ka hor 18 May ama isla maalinta ay dhacayso dabaaldega 18 May ayagoo markaasna qorshahoodu yahay siyaasiyiinta ama dadka falanqeeya siyaasadda ka soo jeeda xamar waxay ku sheegeen socdaalka fardhiye inuu ahaa mid lagu doonayo in lagu fashiliyo laguna suurad xumeeyo shirkooda tashiga isugu yimaadeen maamulada ka jira Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ku eedeeyeen falkaasi Puntland iyo siyaasiyiinta daarooda diidan in wax laga bedelo dastuurka Soomaaliya iyo in Soomaaliya ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah bismillaah saaxiibayaal soo dhawaada marka hore marka xigta muuqaalkan fogeyso meel fog u gaaro waxaan rabaa inaan kula wadaago adna fariintan gaarsii intaad gaarsii karto kooxis barkana Koowanta argagixisada ahayd waxay qorsheynayaan inay arbushaan ama inay ka jiraan reer Somaliland xuska dabaaldega 18 May ayagoo markaasna qorsheystay inay weerar gaadmaan ku soo qaadaan deegaano qaybta dhexe muuqaalka aan kugu soo gudbin doono qodobkaasi qodobo kale aan ku soo gudbin doonaa balse marka hore aan ku hormaro fardhiye iyo baahdilaada iyo fashil ka soo raacay shirka waayahanba ka socda magaalada Muqdisho dhowrka cisho ugu dambeysay waxa ku shirsanaa afar maamul goboleed gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka Soomaaliya shirkan qodobada ugu muhiimsan miiska saarnaan looga hadlo waxa kamid ahaa doorashooyinka la qorsheeyay in laga qabto Soomaaliya sanadaha 2026 ilaa 2027 sidoo kale kulankan qodobada ugu muhiimsan looga hadlo waxa kamid ahaa amniga Soomaaliya gaar ahaan dagaalka dowladda Xasan kula jirto kooxaha Al-Shabaab shirkan bilowga hore wuxuu ku bilaabay buuq kadib markii albaabka hore xarunta lagu shiray laga celiyay fardhiye oo ka socda laasanada sugan la casuumina tagay xaruntaasi socdaalka fardhiye ayaa noqday laba cisho ugu dambeysay hadalhaynta ugu sareysa ka jirta gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan goobaha lagu falanqeeyo siyaasadda siyaasiyiinta ama dadka falanqeeya siyaasadda ka soo jeeda xamar waxay ku sheegeen socdaalka fardhiye inuu ahaa mid lagu doonayo in lagu fashiliyo laguna suurad xumeeyo shirkooda tashiga isugu yimaadeen maamulada ka jira Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ku eedeeyeen falkaasi Puntland iyo siyaasiyiinta daarooda diidan in wax laga bedelo dastuurka Soomaaliya iyo in Soomaaliya ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah fardhiye marka hore shirkaas laga hor istaagay hogaamiyaasha ka socda maamulada dowladda federaalka ayaana ku kala qaybsamay arrinta fardhiye hogaamiyaasha qaarkood waxay soo jeediyeen in la soo fasaxo fardhiye maadaama safar dheer uu soo galay haddana uu ku sugan yahay afaafka hore xarunta lagu shirayo halka dowladda federaalka ay ku dooday inuusan qayb ka ahayn isla markaana ayagana ay ka casuumin shirkaasi saacadaha inuu dib u dhacay shirkaasi waqti loo qorsheeyay inuu furmo si loo xaliyo arrinta fardhiye dood dheer kadib maalinta labaad shirka shalay gelinkii dambe ayaa loo ogolaaday fardhiye in laga dhageysto ugu hadda ma ahan inuu tala ku yeesho in laga dhageysto bal wuxuu wado hadalkiisa fardhiye waxa ugu muhiimsanaa laba qodob midda koowaad waa mashaariicda la siiyo Soomaaliya tan labaadna waxa weeyaan waa in lagu taageero dagaalka ay kula jiraan Somaliland waliba hadda ay ka cabsi qabaan ayaga in Somaliland ay dib u qabsato laasaanood kan meel laasaanood oo dal Soomaaliyeed dad Soomaaliyeedna ay joogaan hortabinta aynu isku darsanno ilaalinta midnimada ku daro hortabinta hal lagu daro hadii ilaahay ka dhigay qaranimada Soomaaliyeed iyo in laga hortago cadawga Soomaaliyeed doonaya inuu kala gooyo marka hore qaar ka mid ah hogaamiyaasha maamulada waxay ugu diideen fardhiye inuu soo fariisto shirka waxay ahayd cabsi ka qaban deegaankooda iyo inay ku daydaan fardhiye ayna ka goostaan maamulkooda waxaa jira gobolada deegaanada ay hayaan maamulka ka mid yihiin waxaana ka mid ah gobolka Gedo oo ka tirsan maamulka Jubbaland oo hogaamiye ka yahay Axmed Madoobe iyo Hiiraan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo dhawaan sheegtay Hiiraan inay ka gooday Hirshabeelle ayna la baxday Hiiraan State sidoo kale waxyaabaha lagu hor istaagay shirkaasi fardhiye waxa kamid ahaa markii laga yimaado Somaliland iyo dhulka uu sheeganayo fardhiye inay kamid yihiin dhulka la isku oran jiray Somaliland waa Puntland hadda ka careysan shirkan ayadana waxay sheegataa inay maamusho deegaankan hadda fardhiye la yimid madashani ay ku shirayaan maamulada markaasi xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya labada sano uu joogo Xasan Sheekh wuxuu khilaaf kala dhaxeeyay Siciidani khilaafkaas oo ka dhashay balanqaad uu sameeyay ugana baxay Xasan Sheekh Siciidani ka hor inta uusan ku guuleysan xilka madaxtinimada Soomaaliya
khilaafkoodana sii xoogeysanaya marba mar ka dambeysay ilaa heer ka gaaray Puntland ay ku dhawaaqday inay ka goodo Soomaaliya inteeda kale ilaa inta madaxweynuhu ka yahay Soomaaliya Xasan Sheekh. waxaan loo arkaa inta badan siyaasadda Xasan Sheekh inuu u adeegsanayo fardhiye Somaliland iyo Puntland. maalmihii ugu dambeeyay kooxaha isbarkan hubantii argagixisada ah waxay abaabul ciidan ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Sanaag iyo deegaano aan ka fogeyn Qorolugud. waxaana soo baxaya warar hoos oo sheegaya hubantan qorsheynayso weerar gaadma inay ku qaadaan deegaano aan ka fogeyn deegaanada hadda aan soo sheegay ka hor 18 May ama isla maalinta ay dhacayso dabaaldegga 18 May, iyagoo markaasna qorshahoodu yahay inay arbushaan 18 May maalinta ku weyn qulubta reer Somaliland. sidoo kale waxaa dhici karta 18 May gudaha Cergaabo inay ka sameeyaan foodo iyo arbushaad dad aan badnayn oo isticmaalaya maleeshiyaad kuwanta, laakiin midda la hayo ayaa ah hubantan qorsheynayaan weerar gaadma ah maalinta ka horeysa 18 May ama maalinta 18 May. dagaal lawaan ka dhacay Hayabar waxaa ku dhintay mid ka mid ah uqaasha dhulbaahanta. sidoo kale dagaalkaas waxaa ku dhintay laba sargaal oo ay ku tashan jireen maleeshiyaad kuwanta. saraakiishaas huwanta u qaabilsanaa Buuhoodle deegaanada hoos yimaada. saraakiishaas mid ka mid wuxuu ku dhintay dagaalka halka midka kalena uu dhintay dhaawac ka soo gaaray dagaalkaasi. dagaalkaasna wuxuu ka dambeeyay maleeshiyaad ka tirsan huwanta si dhumasho waxay ku soo galayeen deegaano markaas aan ka fogeyn Qorolugud, ayagoo markaas raba waa maleeshiyaadkaas huwante si gaadma inuu dilaan qof aan hubaysan ama qof hubaysan markaasi aan iska jirin. dhowr cisho ka hor xilli habeen maleeshiyaad ka tirsan huwanta waxay dileen caruur la joogta geel oo da'doodu u dhaxaysa 15 ilaa 14. caruurta laayeen huwanta waxaa ka mid ahaa wiilkan hadda sawirkiisa idin muuqda. deegaanka ay ku dileen waa deegaan markaasi aan sidaas ugu fogeyn Qorolugud.